waxay tiri maqaayadii Naciima Joker maqaayado badan baa laga dul furtay oo gift lagu raadinayo waxay tiri iminka business baa laga sameeynaya waxaas waa cambaariyay qasbiga qas soo duftay dhageysiya gabadhaas ari aqal baa waxay tiri daan xasku maamul Sharma Boy ma fahamtay waxay tiri Sharma Boy baa u soo hiiliyay Sharma Boy waxay tiri markaan guursaday xitaa ima soo hambaliyay hees uu qaas ka day wiilkan eedadu ahaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو نكسن داوديال ميل كستو أدونك كجوكتان هل كان نقد داونيسان وبرت يوتيوب كأن كلنا هاي برهان جنال برنامج كأد داونيسان نوا برنامج كيني لما عبحي صومالي سيلبرت نيوز خد بدأ أتكون داون دونتان نوا حاكمد هشيس هير عالمي أو دحمري دونا داهر على سو يوليبا نمع جوكر داهر على سو ودوان سفر heer caalami ah ku tagi doona dalka Mareykanka waa kuma siyaasiyiinta ku dhex jira dhexdhexaadinta heshiiskan caalamiga ah ee dhexmari doona nimca iyo waliba daahir hadii daahir caliso uu ka dago dalka Mareykanka ma dhici kartaa in nimca Joker ay dacweyso halkaasina oo xabsi ku galo qodobadaas iyo qodobo kale ayaa inta uu socdo barnaamijkeena ku daawan doontaan waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa marka hore in aad muuqaalka aad like saarto aadna ka mid noqoto kumanaanka kun ee ku xiran barteena YouTube-ka ila lagu kalsoonaan karo oo waliba si rasmi ah iigu xaqiijiyay in wariye Daahir Cabdulle Calisow uu boorsooyinkiisa u xirtay in uu u dhoofo dalka Mareykanka xogtaasi aan helnay ayaa waxaa noo xaqiijiyay sida aan idin sheegay rag zaid ay iskugu dhow yihiin wariye Daahir Calisow iyo waliba nimca Joker xogtaan safarka Daahir Calisow ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu qoseeyaa in nimca Joker iyo Daahir Calisow uu heshiis heer caalami ah dhexmari doono nimca Joker oo majaajilista Soomaaliyeed ayaa Daahir Calisow hadda waxa ay isku dhacsan yihiin muddo ku dhow dhowr sano dagaalka Daahir iyo nimca Joker ayaa ka soo bilowday kadib markii ay nimca Joker ay u hiilisay Sharma Boy laakiin markii dambe uusan ugu hambeen sidii shalay ay ayadu ugu hambeesay nimca Joker oo afkeeda ka qiratay in Sharma Boy uu xumeeyay ayaa waxa ay tiri shalay markaan guursaday eedo hambal iyo xitaa uu ii qoori waayay dhalinyaro YouTube-ka ka bariiseynaysan oo habeen walba magaciisa lacag ku qaadanaysana waxa uu ku soo daray heeso asagoo leh hebel ka baq hebel baa ka carartaa sida aan idin sheegaba dagaalkaas nimca iyo Daahir dhexmare ayaa ku bilowday dagaalkii u dhaxeeyay Daahir Calisow iyo waliba Sharma Boy nimca Joker ayaa dhawaan waxa guursaday fanaanka shanta Soomaaliyeed ee lagu magacaabo Ilka Casaqays oo rapper ay dadka Soomaaliyeed ay aad ula wada dhacsan yihiin heesaha uu qaado Ilka Case dhammaan shanta Soomaaliyeed waa fanaan u dhaxeeya qolo ama maamul uusan hees ku amaanina ma jirto xitaa waxa uu u gudbay qabiilada inuu hees ku amaano qabiil kasta oo Soomaaliyeedna waxa uu ku amaanay sida aan idin sheegay hees uu dhawaan soo qaaday guurka nimca iyo Ilka Case ayaa dadka Soomaaliyeed waxa ay isdhahayeen maadaama Ilka Case iyo Daahir Calisow ay saaxiibo ahaayeen dagaalka u dhaxeeya labadani uu isbedeli doonaa guurka nimca Joker iyo Ilka Case dagaalkii ama qadiyadii u dhaxeysay nimca Joker iyo Daahir Calisow waxba kama bedelin haddaba wararka aan helayna ayaa waxa ay sheegayaan in dhexdhexaadintaasi ay wadaan rag mas'uuliyiin iyo waliba abwaano fanaano wariyaal iyo waliba YouTubero sidoo kale waxa arintaasi gacan weyn ka geystay ayaa la leeyahay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Mareykanka Daahir Calisow iyo nimca Joker Ramadaanka dhexdiisa waxa laga yaabaa in ay ku kulmaan dalka Mareykanka sida aan horeyba idinku sheegay Daahir Calisow ayaa waxa lagu qanciyay in gabadha walaashiisa uu u hoydo sida aan xogta ku helnaba waliba Daahir Calisow waxa laga dhaadhiciyay in gabadha uusan social media ka dhihin abay aan iscafino sidaas bedelkeedina uu sameeyo dhaqankii hore ee Soomaaliyeed ee ahaa in qofka loo hoydo oo waliba xal iyo xumeen loo geeyo Daahir Calisow ayaa laga yaabaa hadii dalka Mareykanka uu tago in nimca Joker oo ay muuqaal ku wada jiraan oo waliba uu u hoyanayo in baraha bulshada aad ku arki doontaan xogtaani helnay ayaa dadka Soomaaliyeed intooda badanba waxa ay u haystaan dhayal iyo waliba kaftan laakiin wax kastaba waxaad arki doontaan xilligeeda xogtaan shakhsiyaad oo ka gaabsaday in aan magacyadooda halkan ka soo gudbiyo ayaa dad lagu kalsoonaan karo waliba magac iyo maamuus weyn ku leh
dadka Soomaaliyeed iyo waliba baraha bulshada dhexdooda. Laakiin ma dhici kartaa in haddii Daahir Calasow uu dalka Mareykanka tago ay Nimco Joker ay dacweyso oo go'aankeedii ah heshiiska ay ka laabato? wax walbaba way dhici karaan, laakiin Nimco intaan ka aqaano waa gabar fiican, qool leh, ballanna leh. lagamana yaabo in maadaama uusan hadda dhib weyn oo waxaa laga xaltamaa dhowr qof ama qabiilo dad iska dilay oo waliba dee nafta aan la soo celin karin ayaa laga xaltamaa. laakiin laba qof oo isku hadallo isku turtuuray sheekadooda in la xaliyo mid saas u sii fog ma aha. Daahir Calasow iyo Nimco Joker dagaalka u dhaxeeyay ee ku dhex maray baraha bulshada waxa aad u huriyay dhalinyaro kala taageersan labadooda. hadday TikTok noqotona Nimco Joker difaaceeda waxaa lagu raadsanayay lacag, sidoo kale Facebooka haddii ay noqotona Nimco Joker ama Daahir Calasow in la difaacaba waxaa lagu raadsanayay kharashaad. xog aan sidaan oo kale muddo laga joogo sanad aan idinkula wadaagay ayaa ahayd in Daahir Calasow uu Sharma Boy u celin doono berigii uu YouTube-ka uu ka qaatay. dad badan ayaa lahaa ma laga yaabo in uu Daahir ninkan ciwaankiisa u celiyo, laakiin markhaati waxaa ka ahaydeen in wax walbaba lagu xaliyay qaab hoose. Daahir Calasow iyo Sharma Boy hadallada ay baraha iskaga tuuraan labadoodaba waxa ugu jirta faa'iido. hadday Sharma Boy noqotona waliba dadka qaar ayaa aaminsan dagaalkii dhex maray Sharma Boy iyo Daahir Calasow inuu Sharma aad ugu faa'iiday. maxaa yeelay Sharma Boy asagoo normally iska ah, fanaanna iska ah, ayaa marka uu Daahir isqabteen hal mar ayuu si toos u sii qarxay. dad badan oo heesihiisa aan la dhacsanayn xitaa waxa ay u noqdeen taageerayaal oo waxaad ka arki kartaanba YouTube-kiisa oo gaaray dhowr boqol oo kun oo subscribe ah. waxaana laga yaabaa Sharma Boy inuu noqdo fanaankii ugu horeeyay ma ah YouTuber ogaaday ah ama YouTube heesa la soo dhigo. Sharma Boy waxaa laga yaabaa inuu noqdo markii laga soo tago fanaaniinta Soomaaliyeed internationalka sida Keenan oo kale, Sharma Boy inuu noqdo fanaankii ugu horeeyay ee ku heesa afka Soomaaliga ee 1 milyan YouTube ka gaara. ilaahay idinkiisna waxaan u rajaynaynaa in guushaasi ay u noqoto mid mustaqbalkiisa iftiin uga sii dhigta. Sharma Boy iyo Daahir Calasow sida aan idin sheegayba hadda dagaalkoodii zaa'id uma sii badna oo Daahir Calasow marmar buu live iska soo galaa, hal hadal buu iska tuuraa. Sharmana wuxuu rakibtaa makarafoonadiisa, hal heeso 2 daqiiqo ayuu asna ku tuuraa. marka labadaba faa'iido ayay qabaan. ugu dambeyntiina dadka aaminsan in Daahir Calasow safarkiisa dalka Mareykanka hadduu ku tago in la xiri doono waxaan idin leeyahay hadalkaasi 80% ama 90% ma dhici doonto. maxaa yeelay Nimco sida aan idin sheegaba waa qof ballanta iyo qowlka ku fiican, mana laga yaabo. dadka xogtaan ila wadaagay ayaa aaminsan in arintan ay tahay shirqool. waxaa sidaasi aaminsan qayb ayaga ka tirsan, laakiin intooda badan waxa ay isku raaceen in arintaani ay wadaan siyaasiyiin iyo waliba dad magac iyo maamuus ku dhexle baraha bulshada. haddii ay noqotona jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Mareykanka ayada laftirkeeda xitaa waa qof dumar ah in dagaalkaani uu ka istaago oo ayada iyo Daahir Calasow ay iscafiyaan waxa ugu jirta dan. maxaa yeelay ninka ragga iyo dumarka markasta waxa aad haddii dagaal la galo ugu qasaaraya qofka dumarka ah. haddii ay noqoto dagaalada ka dhaca Soomaaliya ee xabadda la isku adeegsado, hooyada waxa ku dhinta wiilkeeda, ninka qaba walaalkeed iyo waliba aabaheed. marka dhibkaasi inta ay Nimco iyo wiilkeeda, sidaas daraadeedna qofka dumarka ah kuma fiicna dagaal. ugu dambeyntiina waxa ilaahay idinkiis ka baryeena in bisha Ramadaan fadligeeda iyo waliba maadaama la sheegay in bisha Ramadaan sheedaamada ugu waaweyn la xiro in arintaani ay ku dhamaato si khayr ah. taas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamij aan uga hadlaynay safarka Daahir Calasow iyo waliba heshiiska heerka caalami ah ee dhawaan dhex mari doona Nimco Joker iyo waliba Daahir Calasow. fadlan haddii ay ku tahay markii kuugu horeysay oo muuqaalkeena ku soo gaaro, waxaan kaa codsanayaa marka hore inaad muuqaalka aad like saarto, aadna ka mid noqoto kumanaanka kun ee ku xiran barteena YouTube-ka. ha moogaan halkaani habeen walba, xilli kasta, subax kasta iyo waliba galab kasta waxaan uga hadli doonaa Somali Celebrity News. waxaa ka daawanaysaan Burhan Channel, waxaana inii soo diyaariyay anigoo ah Burhan Cali. waxaana idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.